muuqaalo kala duwan oo la helay waxay muujinayaan qalabka difaaca hawada oo Soomaaliya si toos ah loogu keenay iyadoona diyaaradaha Turkiga iyo Qatar ay iska kaashadeen arrintaasi. Ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuuraansi waxay u sheegeen in arrintan dowlado badan oo dariska ah walaac badan ay ka muujinayaan marka la eego xaaladda guud ee dhanka Soomaaliya maadaama Soomaaliya xilligan ay heshay qalab casri ah oo ugu yimid wadamada cilaaqaadka iyo saaxiibtinimada dhow kala dhaxeeya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay markaan xoogga saaraysaa dhismaha ciidanka cirka iyo kuwa badda. Waa arrinta ugu ugub ama dhibaato ku ah marka la eego arrimaha ku xadgudubka hawada Soomaaliya iyo sidoo kale in badda dalka dhibaato xooggan ay ku hayeen wadamo shisheeye oo maraakiibtooda iyo doomahooda u joogeen kuwaas oo in badan ka shaqaysanayay xaalado adagna ka abuuranayay. dhanka hawada waxaa soo xirmaya malafkii adkaa ee ku aadanaa in hawada Soomaaliya diyaarad walba ay ku soo xadgudbi karto iyadoona sidoo kale goobo gaar ah la geey doono qalabkan casriga ee difaaca hawada isla markaana waxaa la diyaariyay diyaaradihii casriga ee lagu xiri lahaa ee arrimahaas ka shaqeynayay. ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuuraansi waxay u sheegeen in maalmihii u dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ay waday dhaqdhaqaaqyo culus oo arrimaha la xiriira tiyo jirto ayay saraakiisha mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya waxay si toos ah u baahinayeen maraakiibta dagaalka Turkiga ee biyaha Soomaaliya ku soo xirtay qalabka casriga laga dejinayo sida taangiyada iyo diyaaradaha Turkiga casriga ee kal hor yimid Soomaaliya kuwaas oo maharajaan ama dholotus ku sameeyay dhanka iyo magaalada Muqdisho xeebaheeda iyadoona meelo u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadana lagu arkay diyaaradaha F-16 ee Mareykanka asal ahaan uu leeyahay laakiin Turkiga uu ka soo iibsaday. diyaarado kale oo Turkiga lagu sameeyay ayaa Muqdisho jooga kuwaas oo howlgallo guud sameynaya waxaana mas'uuliyiin ka tirsan Muqdisho, Ankara, Doha, Riyadh, Qaahira iyo wadamo kale ay bilaabeen inay sameeyaan isku xirnaan shabakad guud oo geeska Afrika looga hortagi doono isku dayada kala duwan Itoobiya, Imaaraadka, Israel iyo xubno kale ay wadaan kuwaas oo doonaya in ay majaxaabiyaan jiritaanka guud ee Soomaaliya iyo amniga guud ee isbeddelka ku yimid ee hadda sii xoogeysanaya. qodista shidaalka waa cutub kale oo gaar u yaal iyadoo arrimahaasi guud ay dhinac socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay wadaan saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan oo dowladahaasi ka tirsan kuwaas oo iska kaashanaya xaaladda guud ee dhanka siyaasadda. siday xaqiijiyeen ila kala duwan waxaa sii kordhaya xaaladaha guud ee la xiriira dhanka siyaasadda tiyo jirto ayay saraakiishii mas'uuliyiintu ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo ay ku doonayaan in ay jilbaha ku aasaan isku dayada kala duwan ee ka imaanaya dalalka guud ee bilaabay in ay diiradda saaraan xaaladda siyaasadeed ee dhanka Soomaaliya. wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in maalmihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyadaasi iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay markaan bilaabeen in ay inay adkeeyaan xaaladaha guud ee dhanka siyaasadda iyadoona bal arrimahaasi idil loo eegayo dhibaatooyinka xooggan Itoobiya ay in muddo ay ka waday Soomaaliya. dhismaha ciidanka badda Itoobiya ayaa markaan waxa uu noqday mid la qoosiyay iyadoona ciidanka badda Soomaaliya tababarka loo geeyay ee waddanka Qatar ay dhawaan dalka dib ugu soo laabteen. waxaa intaasi dheer maraakiib doomo dheereeya qalab kale oo casri ah oo badda Soomaaliya lagu xirayo kuwa looga warqabayo maraakiibta iyo kuwa gujisada ee qaybta hoose soo geli kara kuwaas oo ilaalinaya marka la eego amniga guud ee dhanka badda Soomaaliya. waxaa intaasi sii dheer ciidan cirka oo Soomaaliya oo ka jawaabi kara arrimaha xaaladaha soo kordhi kara taasoo keentay in dowlado fara badan ay waqti iyo maalba ay ku bixiyaan tababarka ciidamadaasi. isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya waa mid gobolka idil taabtay iyadoona wadamo fara badan oo caalamka arrimahan ay ku sifeeyeen isbeddel degdeg ah oo in muddaha la dheersanayay wixii ka dambeeyay 2011kii Soomaaliya dowladihii isku beddelay arrimaha dhanka siyaasadda waxay ka shaqeynayeen dhaqdhaqaaqyo guud xilligaas. Soomaaliya tallaabadii ugu horeysay ee qaaday waxay ahayd in xeryaha ciidanka lagu tababarayo gudaha dalka loo soo raro waxaa xigay si tartiib ah ilaa iyo
2021 oo dowladda federaalk Soomaaliya ee bilowday qorshe waaweyn oo lagu daadejinayo diyaarinta ciidamo gaar ah kuwaas oo ka hortagi kara xaalad walba oo halis ku ah dalka iyadoo sanadkii xiga 2022 Soomaaliya ay bilowday tallaabo ay ugu maarmayso ciidanka shisheeye ee madaxda dowladda federaalk ka ilaalin jiray iyadoona 4 sano u dambeysay dowladda federaalk Soomaaliya mas'uuliyiintooda sare sida madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xarunta madaxtooyada oo inta badan ay joogeen ciidamo shisheeye aanay jirin askari ajnabi ah taasoo keentay in wadamo fara badan arrintaasi walaac ay ka muujiyaan. arrinta kale waa in aan loo joojin baaqyada kala duwan ee ka imaaday dalalka ciidamada ku yaboohay oo dhowr jeer sheegay in askartooda Soomaaliya kala bixi doonaan laakiin dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa wadamo kala duwan oo isbahaysi la ayaa waxa ay bilowday in haddii ay joogayaan iyo haddii ay baxayaanba ciidankaasi laga tashto taasoo keentay in walaac xooggan ay soo wajahaan wadamada ciidamada Soomaaliya ugu yaboohay. wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasan tahay daawashada iyo la socodka wararkayaga.